Qur'aanka ama hantida. Nin ayaa waxa uu lahaa lacag aad u fara badan, mana u sugnaayeen wax qoys iyo carruur. Laakiin waxaa jiray shaqaale aad u fara badan oo uga shaqayn jiray guriga uu isaga deganaa. Habeen ayuu ku martiqaaday dhammaan shaqaalaha casho sharaf. Mid walba oo ka mid ah shaqaalihiisa waxa uu hordhigay kitaab Qur'aan ah iyo xoogaa lacag ah. Markii ay cashada dhammaysteen, waxa uu weydiiyay in ay kala doortaan kitaabka Qur'aanka Kariimka ee wanaagsan iyo lacagta. Waxa marka hore uu weydiiyay waardiyaha, waxa uuna u sheegay inuu kala doorto kitaabka iyo lacagta, asaga oo aanan xishoonin. Waardiyihii ayaa ku jawaabay, "Waan jeclaa inaan qaato kitaabka Qur'aanka, laakiin ma aqaan sida loo akhriyo. Sidaa darteed waxaan qaadanayaa lacagta. Ayada ayaa ii faa'iido badan xilligan." Ninka dharka dhaqo ayuu weydiiyay sida uu u weydiiyay ninkii waardiyaha ahaa. Ninkii ayaa yidhi, "Xaaskayga way xanuunsan tahay. Waxaan u baahanahay lacag badan oo aan ku daweeyo. Haddii aysan jiri lahayn xanuunka xaaskayga, waxaan dooran lahaa Qur'aanka." Kadib waxa uu weydiiyay cunto kariyaha inuu kala doorto. Cunto kariyihii ayaa ku jawaabay, "Aniga waxaan jeclahay akhrinta, laakiin shaqadeeda oo badan aawadeed ma hayo waqti aan ku akhriyo Qur'aanka. Sidaa darteed waxaan dooranayaa lacagta." Doorashada ugu dambeysay waxaa noqday wiilkan dhalinyarada ah oo ka shaqeeya xanaaneynta xoolaha. Ninkan taajirka ah waxa uu ogyahay in wiilkan dhalinyarada ah uu yahay sabool. Waxa uuna ku dhahay, "Waan hubaa waxaad dooranaysaa lacagta si aad ugu soo iibsato cunto iyo kabo cusub oo aad ku beddelato kabahan go'go'ay." Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu ku jawaabay, "Haa, waa run. Ma awoodo inaan soo iibsado kabo cusub ama digaag aan isla cunno aniga iyo hooyaday. Laakiin waxaan dooranayaa Qur'aanka. Maxaa yeelay hooyaday ayaa igu tiri kelimad ka ahaatay xagga Alle waxa ay ka khayr badan tahay dahab fara badan." Sidaa darteed kitaabka Qur'aanka ayuu qaatay. Markii uu furay, waxa uu ka helay 2 bashqadood. Bashqadda hore waxa ku jiray 10 ujibaar lacagtii Qur'aanka lala barbar dhigay. Bashqadda labaad waxa ku jira saxiix, kaas oo sheegaya in ninkan uu dhaxli doono qayb ka mid ah hantida ninkan taajirka ah. Kadib ninkii taajirka ahaa waxa uu dhahay, "Qofkii Ilaahay malo fiican ka malaysta, Alle wuu u rumeeyaa." الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.